الحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا ما تحب وترضى. ما أنت واحد شوقنا سلح لي هذا أنا حسب عدالة درير كوعد سيد عادة الله هذا واحد ما أنت هالكن شوقنا أنا كقريب قاعدنا إن البلوحون واحد طبعا نقطة سوق جرسينه تضرب بقولات شنقضات بنا أي نسيدنا ونكوري تشيل نقطة كي فكتم كوها ما يكون عضي طوفان كبير لو يتكلم عايز سلح لي taasna hadii badan ka leeyahay waa wax ma waajibo de xisbi kasta iyo dhamaan shacabka reer Soomaaliland xukuumad iyo shacabba wax nagu waajibay aadni waan ugu faraxsanahay maanta inaanu xilli fiican baan ku soo beegnay wax laga nimaadmo wax walba kala haadsameen kalmad yar baan dur istaagayaa inta aanan halkaasi guda galin kalmadeedu maanta waxay daaran tahay horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga ayaa nimcada iyo dhibaatada keena labadaba Ilaahay baan ugu shukrinaqaynaa hadaynu nahay dad muslimiina marka meel dhibaato ka dhacdo jamhuuriyadda Soomaaliland meesha doontaa noqoto waxaynu nahay dhismo qura sida qof quraynu nahay hadaynu reer Soomaaliland nahay sida jirka marka meel ku xanuunto ay jirka kala dhan u damqado dadka reer Soomaaliland waa dad goba oo meeshii wax ka dhacaanba jecelnay isugu tagaan taasi waxa weey waa tii aynu dhaqanka u lahayn waxa la agsay imka soo baxday arrin fool xun dad ka faa'iideysta dhibaatada meesha ka dhacdo halkan dhibaatada ka dhacday dhibaatadana Ilaahay baa keenay subhanahu wa ta'ala xukuumadii dalkan ka mas'uulka ahayd gurmad bay soo gaarsiisay way timi asxaabtii gurmad bay keeneen shacabka gurmad bay keeneen laakiin samaaha magacii degmada Salaxlin lagu dawarsado waxaynu maanta ognahay lacag aan soo gaadhin halkan in meel walba maanta laga shaqeysanayo haday leedahay Soomaaliya haday tahay East Africa meel walba laga leeyahay Salaxli Soomaaliya u soo gurmo Salaxli Soomaaliya uma baahna Ilaahay Salaxli wuxuu ka dhigay Somaliland baana ku filan dawladeeda ku filan shacabkeeda ku filan xisbiyadeeda ku filan waxaanu xamar uga baahanay maanta ma jirto sabab maanta magaca Salaxli loogu dawarsado oo ummadda loo kala qaybiyo oo la yiraahdo sanduuqa kii hebel ku rid kii reer hebeluna ku ridin dhaqan uma ilaahin degmadan waxa ka soo jeeda saldanad guuna saldanada Soomaaliland oo dhan ba ka soo jeeda dadkii dadka u tirinay ba ka soo jeeda ummadda ma kala qaybino wixii ummadda kala qaybiyana nabiguna uu nacdala oo uu habaaray anaguna waanu habaarayna ummadda in la kala qaybiyo ma jecelin dad quraynu nahay ummaddu waa bulsho qura waa wada hafrodaag waa wada walaal ma aha in aynu dhibaato markaynu dhacdo aynu ka faa'iideysan miisiga laxanka intaanu ku saarno wax kala ka dhigno ma aha inaan xukuumadda ku cambaarino iyadoo xukuumaddu waxba ku lahayn mar haddii xukuumaddu timi oo ay gargaar keeneen in la sugaabeed inta dhamaanayso wixii meesha ka dhacay noogay dacaayad bay ku ahayd gobolkan buu madaxweynuhu qaranka ka soo jeeday Muuse Biixi Cabdiwaan reer Salaxliya waa inaanu taa ogsoonaana waxa weey ma aha in degmooyinka qaarna roog cas loo dhigo oo la yiraahdo halkan waa ood weynas waxaan ku dhignay roog cas Salaxlina madaxweynaha lagu aflagaadiyo ma aha mana aqbalayno Salaxli madaxweynaha aftuwa degmadiisu waa tan madaxweynaha marka waxa weey guriyaha calaamada la mariyay iidaadu guriyaha calaamada la mariyay waxaan u aragnaa qalad sadaqadu calaamadu ma baahna sadaqadu uma baahna qabiil iyo in loo kala abtiriyo cidii wax la siinay Ilaahay dartii baa loo siinaya walaalnimo wada dhalasha loo siinaya laakiinse waxaan ku siiyay rinjiga casaanka hay mari ama ka buluuga hay mari ama ka oranjiga hay mari adeer waxayna qabta ma aha waa qalad dadkaana xuquuqdooda meel baa laga dhacinta wax la siiyay midabka marso dadkani waa xor dastuurka xorriyadooda siiyay kalarka doonaan bay marsanayeen jingadooda midab qasabi ma jiro dastuurkeenu muu qasbin midab gaar ah midabada lama kala dooran qof walba wixii uu midabku doono marsanaya waxaan leenahay dadka laga daayo in lagaga faa'iideysto dhibaatada oo shuruud lagu xidho sadaqada la siinayo sadaqada in la buunbuuniyo ma qurux badna annagu xisbiga u cid qunyar socod baanu nahay halkan qunyar socod baanu ku nimi inta wixii meesha ka socday waanu eegaynay waanu la soconay waxaan leenahay reer Salaxleeyow magaciina in lagu qaraafto maaha degmaduna way isku filan tahay qarankeeda ku filan dawladeeda ku filan ku noqon maayo halka waxaanu sidnaa 700 jingood baan ku wareejinaa maamulka maayarka iyo magaranaysa gudida degmada waxaan iga dambeyn doona mas'uuliyiin kala hadalka